geelu Soomaalida waa laf dhabarkeeda faa'iido badan uu leeyahay dhinaca kalena islaamku sidoo uu yahay quraanka Ilaahay ku sheegay oo uu yidhi maartay aflam yaduru ila al-ibil kayfa khuliqat geel sida loo sameeyay miyaanay eegina u fiirsanin markaas maanta waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkan gabayada ku saabsan geela qaar kamid ah halka waqtiyo badan kulay way jirtay inaan suugaanteena ku soo darnay aan Soomaalidu way ku soo dartay laakiin anigu marxaladahaas oo kale markaan ka hadlayay waxaan idhi xoolaha oo dhan intaan sheegay inaan geel gaar u sheegay taasaan doonaynaa maanta wixii Ilaahay naga karsiiyay inaan halkan ka gallo aan nala wadaagtaan arariyo ujeedaba markaada la baarayso hadba shay oo doros la jirood ku ijtihaadaye asalkooda xoolaha markaan kala astaynayo odhahdayda maqal geela waan ku awilayaaye odhahdayda maqal geela waan ku awilayaaye unse iyo labey kala yihiin unugyadiisiiye awrkuna wixii lagu raru arad fogeeyaaye aqalkiyo wuxuu qaadayaa ugab agabka ku yaale ubadkiyo alaabtoo dhan buu adhaxda saaraaye amarkaaga jeer u aqbalo wuu arrumayaaye aasha markaad buuxisaadoo tidhahdaaye orod iyo durduro kuma dhufte ayar buu kiciye adinkiyo tallaabadaba wuu kula ageeyaaye iridaad martuu kula gala ay kastoy tahaye olku ayiraayo hadduu ardhabaanayo isaga ilaalaynayo wuu ildheeryahaye meeshii amuuraysan buu egmadow badine markaasuu ogaadaa ninkii adiga ahaaye abaartiyo masaafada wuxuu ina kuu soo dhaafay olyo kama dooniyo saliid lagu istaadhaaye anfac loo diyaarshaa jiru eebbahay dhigaye ilkuu ku soo daaqayaa iibna maahayne ilaah bayna siiye miyaan ibilka loo fiirsan adeega iyo hawla markuu wuxuu kugu adeecaaba yooryaha madiid iyo cashuura yar soo qabane unuunku u dhigan keenaday alaq ku siiyaane adeega iyo hawlaha wuxuu kugu adeecaaba goortay barwaaqadu iftee umalku soo muuqdo goortay barwaaqadu iftee wuxuu soo muuqdo olole iyo qoorhkii bilowana fadiisiiye markaas abeer lagu daraydin iyo laaqe arbiciinka iyo boqol wixii oo daloo geliyo ayaamaan badnayn buu maraa kuna asiibaaye itaalkeeda waa leeyihiyo alad iyo xooge itaalkeeda waa u leeyihiyo alad iyo xooge
ma ogola soo galiyo aranbaadiyahe agagaarka kii soo maraba uu eryanayaaye iyaguna sidii unsigii way ku ururaane isu joojintana wuu yaqaan oday sidiisiiye goortay amargojiyaanu reybay noqone isu joojintana wuu yaqaan oday sidiisiiye ilaah bayna siiye miyaan ibilka loo fiirsan goortay amargojiyaanu reybay noqone isnaata cashar bay qaadaysaa unuga neefkaase umulkeedu goortuu dhow yahay aakhirkana joogo umulkeedu goortuu dhow yahay aakhirkana joogo markaasay ibaha buuxinoo eri loo culane markaasay ibaha buuxinoo eri loo culane ayaantay dhashaba caanaha laga ogaaye ubadka iyo waayeelku way ku intifaacaane ilaah baysna siiye miyaan ibilka loo fiirsan ubadka iyo waayeelku way ku intifaacaane irmaankeedu waa 2 sano ayatiim badane ilaah bayna siiye miyaan ibilka loo fiirsan utun iyo hadday laba qabiil aanu kala gaadho ajal baabaxayse haddii loogu alaasiiyo ololaha dagaalkiyo haddii umal ku soo muuqdo ugaanka qaylada hadday uradu isgoyso ololaha dagaalkiyo hadduu umal ku soo muuqdo ayu aqoon-yahanku meeshii shidale kama adkaystaane ergelaysu soociyo haddii odaya loo miidho amuuraha markay ugu tagaan ubuucda hoosteeda waxay ililiglaysaba magbay ku intihootaaye isaga afgaradkii noqdo eelka kaafiyae ilaah bayna siiye miyaan ibilka loo fiirsan haddii oo shareeraha miyiga inan la weydiisto oo loo ardaa dhigo sidii abuudba soo taallay ilaaqda iyo haasaa waha laysu arartaaye idinsi inay goortay dhacde idanku soo meero inkastoo uluufaadka lacag egelala boodo adduungeeda nimankii baxsha lagu ammaanaaye ilaah bayna siiye miyaan ibilka loo fiirsan ummadse meel timaada haddii adu tira dhaafto ummad meel timaada haddii adu tira dhaafto inaan adhi wax ka kaafiyayn wado dorostaaye inaan adhi wax ka qaabilayn wado dorostaaye isaga wax ka qaabiloon cidi idlaynayne
إلى بين سيميان إبل كلو في رسم أستان في عنويان هدان لا سرارين إنجليز كوليتاي مجيرو روحين كيرياي إشضيو جايل وقوان أدميغا كالي حيا شيرا باكو مدن إن مديسية إقلن بقلبي اللوغو ريدي أدا وطاية إنتا ميلكالي إيغينينو إندا تاغينو إلى بين السيئة ميان إبل كالو في رسم ساوحا ساولين هاي كير وقنيمة آدو فيها تصارت بدن باكو جرا بل أم حادو ديكتا مانتو داق تيجيا وصو حرونيا عانا لغا لسيا فربدن ويل فربدن با لغا بخينيا دادك way dhamayaan way dhergayaan kolka hadda waa la seexanaya hadana xiradii buu ku jiraya oo xariistanaya waxyaab cajaybta waxa kamid ah suuxi baa soo toosaya weelkii baa soo qaadaya hadana ma weel kale oo aan kiibahan wala la geliya wala soo bixinaya wixii weelaha dadka way dhamayaan wala dhiganaya isweydiin waxa leh hawl male ee uu xariisnaa xal xiradu ku jiray qarash kaama gelin idina ma soo qaadin intay wax soo qaaday oo kuma shushubin inta lacaanaha kan hadan u fiirsano in xalay ku dhaafto oo intay meesha timi ku shubaysay ama tumbooyin ama wax maartay de meelkiis iga soo waariyay oo adigu aad dareemi karto de ma jirto markaan soo sheegnay markaas hadaad u fiirsato oo aad marka aqal cusub ama fiyow arinta ku eegto ama fiiradaada rogrogto hadalka saarin cajiib inuu meesha ku jiro wax cajiib oo ilaahay nasiibiya sidaas aan leenahay ilaahay bay nasiiyay ibilka loo fiirsan jeedada ka dambeysana waxa weeye in loo fiirsado midda kale mid kasta waa astaan bay wuxuu leedahay inaga ilaahay astaan gaar oo nasiiyay weeyaan la soo maanta magaalada Buuqa ama magaalada Hargeysa ama magaalooyinka kala mid ah yaani hareeraheeda waa lagu soo xareeyay nimcada ugu weyn hadaad u fiirsato ayna caalamka ka dalbani waa ta isaga inoogu jirta saas ajligeedu jeedkeena waxa weeye inaynu u fiirsano weeyaan tusaale fara badan ayaa ku jira ama dhaqankeena hore ha ahaato ama keenan dambe ha ahaato horta dhaqankeena hore aynu ka tagnaa waa inuu lidnimo sideedaba oo dhaqankeena hore waa dhaqan aad u muhiim ah kolka waynaga meel badan ku soo qaadanayna dhaqankeena hore moodlo dhaqankeeda ayay leedahay maarta inaga oo barnaamijka geela aan halkan oo ku joojin doonin marar dambe ku noqon doona waxaanu hore ugu mari doonaa oo mawduucan ku xiga ama waqti ku ka hadli doona bal dhaqankeena kale iyo wanaagyaalkiisa maantana halkaa ayaan barnaamijka ku joojin doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.